السلام عليكم ورحمة الله. مركا fraction key what fraction introduction kiisa fraction wuxuu noqday a part of a whole object. Soomaaliga waxa lagu yaqaanaa jajab waa shay qaybtiis. For example halkan oo kale haddaad fiirisid meesheenaan waxay noqonaysaa bar iyo bar miyaan ahayn. So fraction wuxuu noqonayaa hal meel labadii meelood hal meel loo qaybiyo. haddaan si kala qaybinaad aan ka dhigno say afar qaybood ka dhigno 1 2 3 4 ka dhigno afartaa qaybood ka dhigno dan kala ugu sameeyo qaybta buluuga qaybta gaduudka qaybtaas madowga iyo qaybtaas cadaanka afartaa qaybood qayb walba waxay noqonaysaa qayb walba mataqaana waxay noqonaysaa 1/4 bay noqonaysaa. Objective wuxuu noqon karaa table buu noqon karaa miis buu noqon karaa goobo buu noqon karaa wareeg buu noqon karaa. For example wuxuu iska noqon karaa wareeg shay wareeg iska noqon karaa saas oo kala wareegkaas oo kale markuu noqdo waxaan samayn karnaa barnaamijkan oo kale haddaan hadda laba u qaybino ama afar meel u qaybino 6 8 waxaan doonaan u qaybin karnaa. hadda waxaan u qaybin karnaa halkaas aan qabsan karnaa waxaan dhigi karnaa waxaan leeyahay ka fog waxaan siin karnaa hadda halkaan la si color blue aan siino waxaan siin karnaa kan oo kale hadda waxaan u qaybin karnaa aan duude qalin baan u baahanahay. I don't need that one. I need a marker. So aan siino aan laba u qaybin day kala barobar bay noqotay soo ma afar u qaybin afar 1/4 meel kasta noqotay 6 u qaybin 1/6 bay noqotay. kan oo kale wuxuu noqday qayb kasta waxay noqonaysaa 1/8. For example halkan oo kale hadda day intaan haddaan qabto intaa hal meel bay ka tahay 8 meelood tiri waa 8 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 8 qaybood weeye. marka hal qayb bay ka tahay hadday laba qaybood ahaan lahayd oo gaduudkii cadaan gaduud ku daro hadda aan ku raaa imisa gaduudka iyo buluugga isku yihiin waxaa dhihi lahayd waxay isku yihiin 2/8 laba meelood waxay ka yihiin 8 meelood. marka fractionku waa part of whole object ka socono oo ku dheeraana aad moodaa waxaan ereyga baro numerator iyo denominator. Numerator waa sareeya denominator kuna waa hooseeya 3/4 hadii lagu siiyo kaa kore waa numerator weeye kan hoosena muxuu yahay kan hoosena waa denominator waa erey bixin weeye iska qabo. Numerator maxaa loo kala yaqaanaa denominator waa yahay saddex nooc baa fraction loo qaybiyaa. mid waxaa la yiraahdaa proper fraction waa fraction kii caadi ah oo numberka koraa yar kan hoosaa weyn. Improper fraction kan koraa weyn kan hoosaa yar. Mixed fraction waa whole number sida 5 oo kale oo lagu qabtay fraction 5 fraction kina u horeeyo kala hadii lagu dhinac qabto 5 3/4 hadii la yiraahdo marka sida loo akhriyaa 3/4 7/3 ama 7/3 de kan waxaa dhigaysaa 5 3/4 ama 5 whole number baa akhri kartaa kaas whole number baa akhri kartaa 3/4. cashar labaad waxaan ugu xigay equivalent fraction marka casharada khafiifinayna wax yar baan ka dhigaynaa insha Allah ad qabsan kartid. haddaad rabtid inaad practice badan qaadatid dee waxaad tagaysaa hadii ilaahay yiraaho master.com tag kana akhri waana free. dadkii hore u galay xoogaa moodaa soo diyaar inay galeen hadda laakiin waa diyaar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharku xiga isku arkayna.